xijaabku waxa looga jeedaa gabadhu inay asturto nafteeda inta loo jideeyay inay banayso mooyaane wajiga oo culimadu ay isku hayaan iyo kafaynka wixii ka soo haray gabadhu jirkeeda inay asturto walibana ragga ajaanibta ay ka asturto markay dibadda u soo baxaysa ay xijaabato xijaab waa an tastura nafsaha weeye maxay ku asturaysaa ama xijaabka laga doonayaa muxuu yahay shuruudun baa la doonayaa inaad ilaaliso haddii aad shuruudda ka soo baxdo xijaab buu noqonaya midabkuu doono ha noqdo qaabkuu doono ha u tallaado magacii la doono ha loo bixiyo waa inuu yahay shay laga helay shuruuddii xijaabka sharciga ah shuruuddana kow waxaa ka ah inuu yahay waasic inuu yahay oo aanu gabadha jirhkeeda sawirayn dadka qaar baa cabaayado ama wax xijaab lagu sheegaya tolonaya laakiin jirhkooda ku qaabaynaya oo waxa weeye jirhkoodii sawiraya taqaasiimta iyo qaybaha waxa weeye jirhka sawiraya ka noocaasi xijaab ma aha xataa haddii ay niqaabato xijaab noqon maayo waa inuu fadfaad yahay waasic waa inuu yahay shardiga labaad waa inuu shay adag yahay yacni shafaaf waa inaanu ahayn maro aada u jilicsan oo khafiifa oo waxa weeye jirhku waxa weeye gudaheeda uu ka muuqanayo marada gudaheeda sida dee diracyadan wiilka loo yaqaanoo kale ee khafiifka ah iyo kuwa la midkaa waa inaanu ahayn maro adag oo waxa ka dambeeya asturaya waa inuu yahay waa shardiga labaad weeye shardiga saddexaad shayga gabadha muslimadda ay xidhanayso waa inuu yahay shay aanay isku shabahayn dadka la diiday in la isku shabaho rag iyo dumartoonna labiskoodii waa inaanu ahayn yacni ragna waa inaanay isugu ekaysiinayn dumarka gaaladana waa inaanay isu ekaysiinayn man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qole isu ekaysiinaya iyaga ayuu ka mid yahay shuruudda ayay ka mid tahay shuruudda waxaa ka mid a inaanay ahayn malaabisu ziina maradii la xidhanayay lagu xijaabanayay inaan la xardhin oo la qurxin oo waxa weeye laga dhigin malaabisu ziina oo sharaxaado iyo dhaldhalaal iyo waxyaabo la mida inaan lagu xardhin oo soo jiidanaya ragga indhahooda soo jiidanaya xafladaha gaarkee dumarku ay leeyihiin iyo gurigeeda haddii ay joogaan xaq bay u leeyihiin waxay doonaan inay ku labistaan waxay doonaanna ay xidhaan laakiin waxaanu ka hadlaynaa xijaabkii ay dibadda ula soo baxaysay shuruudda haddii ay ilaaliso qaab allaale qaabkay doontay u tolonaysaa midabkay doontay ka dhiganaysaa siday doontay u xidhanaysaa laakiin muhiimaddu shuruudda waa inay ilaaliso maradu waa inay waasic tahay jirhkeeda asturaya oo aanu ahayn khafiif dhaldhalaal iyo qurux iyo ziino qofka soo jiidanaysa ajnabiga ah inaanu lahayn tashabuh la isku shabahaya ciddii la diiday inaanay ku sugnayn shuruudda haddii la ilaaliyo insha allahu tacala xijaab sharciya ayuu noqonaya wallahu aclam